intaan xorriyadda la qaadanin United Nations markii la isugu tagay erayo cajiib ah jira waxaan rabaa inaan isugu keen xiro wadankan Ethiopia la yiraahdo jaarkeena qadiyadeena mawaaqiftu ka istaagi jiray United Nations ka looga dooday Soomaaliya xorriyad ma la siiyo mise lama siiyo Hayle Salaasa hadlay saddex madaxweyne Ethiopia erayada ku hadleen baan idin xasuusinayaa oo is ogeyn atawaasaw bihi bal hum qawm daaquun Hayle Salaasa wuxuu yiri ma jiro daliyada xorriyad la siiyo waxaa jira buu dad xoolaha raacda oo annaga iyo Afrikaanka madow noo dhaxeeya oo marba meeshu roobku ka daa u guura oo dawladna lahaan jirin dad jirana ahaan jirin dawladna aan qabsan karin Ingiriiska diiday oo yiri war nimanka ila dagaalamay ee dayuuradaha u isticmaalay ee imaaratu harar laha miyaad hadda ilaahay lama siin karo xorriyad waxba kama jira warkaaga Hayle Salaasa eraygaas uu yiri Mangista markuu dhacay ee meel Harari uu qaxay yaa isweydiiyay waxa la yiri ma ka xuntahay in xukunka Ethiopia laga qaaday maya wiir kama xumi maxaa jira gool waxaan dhaliyay buu madaxweyne iga horeeyay Ethiopia una dhalin ku iga dambeeyana una dhalinayn maxaa jira la yiri cadawgii Ethiopia riday buu intaan anigu dhicin oo dawladda Soomaaliya Allahu akbar Mele Zanaawi ya 93 maru Soomaalida ku shiriyay meesha la yiraahdo Soodare yu nin kamida kuwii warlorska abu la fadhiisto sir ku qarsaday wuxuu ku yiri نحن نريد شعبا صوماليا ولا نريد دولة صومالية أنه waxaan rabnaa inuu shacab Soomaaliyeed oo meelaha xawaaladihi aanu furfurno oo meelaha guriyo adisabaha haday rabtaan ka dhisto baasaboorka naga qaato oo businesskooda meelaha la socda laakiin dawlad Soomaaliyeed ma rabno waa saddex nin oo mid walba 20 sano ka badan ay u dhaxaysay erayga markay dhaxayaan idan waa muhiim inaad baraarugtaan xorriyadda xataa marka la qaadanayo cidii kale in hor istaagta caalamka nimanka